السلام عليكم أصحابتا ku xiran kanaalka waxaan rajaynaa inaad caafimaad qabtaan dhammaantiina intaas kadib aan ka hadalno dagaalka dalka Suudaan. Continues. In recent days, fighting a million more have fled to flee the city of Wad Madani. More broadly, 7 million people are internally displaced by the war. Suudaan waxaa ku dagaalamaya laba generaal iyo ciidamadooda waxayna isku haystaan kii maamuli lahaa caasimadda iyo guud ahaan dalkaba. Haddaba muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa waxa guud ahaan ka socda dalka Suudaan iyo wadamada kor ka daawanaya xaaladda uu ku jiro dalkaas. Soo dhawaada. Suudaan waa wadan ka mid ah wadamada webiga Suez ka dhigay mid aad u muhiim ah siyaasad ahaan. Dalka Suudaan waa dal ku soo dhex jiray muddo aad u dheer dagaal sokeeye. Dagaalkoodii sokeeye ugu horreeyayna waxa uu bilowday sanad kadib markay xorriyadda ka qaateen Ingiriiska 1956. Sababta dagaalkaasi dhalisayna waxay ahayd dalka waxa uu leeyahay kheyraad fada badan oo uu ka mid yahay shidaalka iyo dahabka, waxaana la isku haystay kii maamuli lahaa kheyraadkan faraha badan uu dalka leeyahay. Sidoo kale waxaa jiray dawlado shisheeye oo faragelin ku hayay xilligaas ayagoo rabay interestigooda gaarka inay ka fushaan dalka Suudaan, sidoo kalena kheyraadka dalka uu leeyahay wax ka yeeshaan, waxayna kala taageerayeen labada dhinac. Laakiin dagaalka maanta ka socda sababta ugu weyn ee sababtay waxaa qaadanaya kaliya hal qof, kaas oo ah Umar al-Bashir. al-Bashir waxa uu ahaa sarkaal Suudaanees oo dalka ku qabsaday dhiig dhammaadkii sideedamaadkii. Markii uu dalka qabsaday waxa uu dalka u horseeday dagaal sokeeye cusub kadib kii xorriyadda. Waxa uu guud ahaan meesha ka saaray baarlamaankii dalka, waxa uu guud ahaan tirtiray xisbiyadii siyaasadeed ee dalka ka jiray. Waxa uu wadanka ka bilaabay ama uu maamulkiisa ku bilaabay maamul Islaami ah, ugu dambeyntiina wuxuu isku bedelay dictatorship military. Sidoo kale waxa uu dhistay oo uu diyaarsaday xeelad uu iskaga difaaci karo haddii ay yimaadaan waxyaabo asaga ka soo horjeeda. Waxa uu ciidan maleesiyada ka dhisay halkan oo ah galbeedka dalka, ciidankaas oo lagu magacaabo Ad-Dacmu Sariic ama RFS. Ciidankaasi waxa uu dhistay inuu ku fusho danihiisa gaarka ah, waxuuna hogaamiye ugu dhigay nin lagu magacaabo Cornel Hamiti. sidoo kale bilowgii 2000 Bashir waxa uu lahaa laba ciidan oo ka amar qaata. Labadaas ciidan oo kala ah ciidamada dalka Suudaan iyo ciidamadii aan ka soo sheekeynay uu ka dhisay galbeedka oo uu madaxdana uga dhigay Cornel Hamiti. ciidanka uu ka dhisay galbeedka uu madaxna uga dhigay Cornel Hamiti waxa uu adeegsan jiray danihiisa gaarka. Tusaale ahaan waxa uu adeegsan jiray Suudaanta aan Carabta ahayn ee ku nool Darfur, waayo Suudaantaasi kuma aysan qanacsanayn nidaamka Bashir. mar walbana xaq ay dawladda ku leeyihiin kama aysan heli jirin. Sidaa darteeda Bashir waxa uu adeegsan jiray Cornel Hamiti iyo ciidamada RFS, waxayna u geysan jireen dilal iyo xirxiritaan joogta. Waxaa kaloo jirtay in Bashir kaliya uusan u adeegsan jirin ciidankan inuu ku maamulo xaaladda dalka, sidoo kale waxay kala shaqayn jireen musuqmaasuqa dibadda. waxay u ahaayeen boqortooyo ganacsi, waxay dalka ka dhoofin jireen dahab, shidaal iyo kheyraadka dalka guud ahaan, waxayna u dhoofin jireen Imaaraadka iyo Ruushka. waxay u ahaayeen boqortooyo ganacsi. sanadii 2005 waxa uu dagaal ka bilowday Darfur. dagaalkaasi ku dhawaad waxa uu socday 10 sano, waxa uu u dhaxeeyay koonfurta iyo waqooyiga. ugu dambeyntii waxa uu soo dhamaaday 2011 waxa uu ku soo dhamaaday inuu dalka kala qaybsamo uu noqdo laba dal, koonfurta Suudaan iyo waqooyiga Suudaan. markay koonfurtu go'day waxa ay la go'day 75% saliidii dalka, waxaana dhaqaale xumo aad u ballaaran ay soo wajahday Suudaantii caadiga ahayd ee laga go'ay. dalka waxaa ka dhacay sicir barar aad u xoogan, cuntidii ayaa qaaliyooday. Bashirna ma hayo xilligan awood uu iskaga difaaco mucaaradka iyo xisbiyada ka soo horjeeda. ugu dambeyn sanadii 2019 bulshada reer Suudaan waxay u adkeysan waayeen dhibka iyo rafaadka uu ku hayo Bashir, waxayna bilaabeen inay ka hor yimaadaan. waxaa guud ahaan dalka ka bilowday mudaharaadyo, magaalooyinka wadooyinka oo dhan waxayna dalbadeen dimuqraadiyad. dalkana waxa uu galay kacdoon shacab.
hogaamiyaashii labadii ciidan ee uu dhistay ee kala ahaa ciidamada dalka Suudaan iyo ciidamada uu ka dhisay galbeedka RFS hogaamiyaashooda oo kala ah Cabdilfataax al-Burhaan iyo Xamiiti waxay arkeen waxa soo socda ugu dambeyn waxay ku soo jeesteen aabahoodii waxayna xabsiga u taxaabeen Bashiir waxaana soo dhamaaday 30 sano oo dictatorshipnimo ah oo uu dalka ku maamulayay Bashiir dalkana waxaa la wareegay oo maamulkiisa gacanta ku dhigay General Cabdilfataax al-Burhaan Cabdilfataax al-Burhaan markii uu dalka la wareegay waxa uu xiriir la sameeyay Cornel Xamiiti waxay si wada jir ula hadleen mudaaharaadayaasha waxayna u sheegeen inay dalka ku wareejin doonaan hogaamiye ay shacabka soo doortaan si dimuqraadiyad ah laakiin waxaasi oo dhan waxay ahaayeen wax beena waxba kama aysan dhaqan gelin eegana waxay bilaabeen dictatornimo inay dadkii xirxiraan dadka mucaaradka ay xabsiyada u taxaabaan ay dadka cadaadis xoogan saaraan waxaana sidaas lagu soo gaaray December 2022 markii la gaaray December 2022 Cabdilfataax al-Burhaan waxa uu ku dhawaaqay inuu dalku ku wareejin doono shacabka ayagana ay soo dooran doonaan hogaamiye ay rabaan laakiin waxa uu ku xiray hal shardi kaas oo ah in ciidanka RFS asig ay hoos yimaadaan meeshana laga saaro ninka la yiraahdo Cornel Xamiiti Xamiiti markii uu xaaladaasi maqlay waa ninka intaasoo bilyan ka sameeyay dalka waa ninka dahabka iyo khayraadka dalka iska gurta way u dhadhami weysay hadalka ka soo yeeray Cabdilfataax al-Burhaan waana meesha uu ka bilowday dagaalka maanta ka socda dalka Suudaan ugu dambeyntii 15 Abriil 2023 Xamiiti waxa uu 200 askari u diray xero uu ku sugnaa Cabdilfataax al-Burhaan waxa ay weerareen xeradii waxa ay dileen 35 askari laakiin Cabdilfataax al-Burhaan waa uu ka baxsaday dagaalkii xeradaasi ka soo bilawnayna waxa uu ku faafay guud ahaan dalka gaar ahaan caasimadda haddaba dalka waxa ku dagaalamaya waa laba ciidan oo uu dhisay dictatorkii weynaa ee Umar al-Bashir dalka waxaa ka dhacay burbur shirkado iyo dad ayaa ka cararay dalka ayagoo u cararay wadamada deriska sida Masar, Chad iyo South Sudan haddaba dagaalkan kaliya uma dhaxayn doono labadaani korneel waxa uu noqon doonaa dagaal dunidoo dhan isha ay ku hayso ayadoo wadan kasta uu ka fikirayo kii uu caawin lahaa si ay ugu fushaan danahooda gaarka dalka Suudaan juqraafi ahaan Suudaan waxay ku taalaa meel aad u muhiim ah waxaa mara webiga Suez oo ay maraan 10% ganacsiga adduunka waxaana mara shidaal aad u fara badan wadamada ugu awooda badan waxay jecel yihiin inay saldhig military ka sameystaan halkaas waayo waa meel aad u muhiim ah waxay rabaan inay wax badan halkaasi ka maamulaan intaas waxaa sii dheer Suudaan waa dal leh khayraad tiro badan sida shidaalka iyo saliidda waana sababta dalal badan ay u rabaan inay soo farigeliyaan dagaalkan wadamadaas waxay dusha sare ka daawanayaan labadaani generaal waxay fiirinayaan kii guuleysan lahaa oo ayaga la safan lahaa ama ay keeri lahaayeen danahooda gaarka dalka ugu weyn ee hadda dagaalka si toosa lugta ula galay waa dalka Imaaraadka Carabta waa dalka iibsada dahabka ugu badan ee laga soo saaro dalka Suudaan waxay xiriir wanaagsan la leeyihiin hogaamiyaha RFS Cornel Xamiiti waxay kala shaqeeyaan mararka qaar dahabka uu soo dhoofinayo dalka Imaaraadka Carabta ama company asaga uu leeyahay ayay kala shaqeeyaan soo dhoofinta dahabka laga soo dhoofinayo Suudaan lana keenayo Imaaraadka Carabta sidoo kale waxay mararka qaar u adeegsadaan dagaalada ka socda Yemen oo uu ciidamo u leeyahay sidoo kale hogaamiyaha Liibiya ninka lagu magacaabo Khalifa Haftar asagana waxa uu xiriir fiican la leeyahay Cornel Xamiiti oo mararka qaar ciidan u soo diro hadda markuu dagaalka bilowdayna ciidan ayuu si toos ah ugu diraya Cornel Xamiiti sidoo kale Haftar halkan muhiim ayuu ka yahay sababtoo ah Imaaraadka markay rabaan inay taageero buuxa siiyaan Cornel Xamiiti si toos ah uma sii karaan laakiin waxay soo marinayaan Khalifa Haftar oo ah hogaamiyaha Liibiya asagana si toos ayuu wuxuu u soo gaarsiinayaa ninka lagu magacaabo Cornel Xamiiti sidoo kale Ruushka ayaa asagana waxa uu taageeraa Cornel Xamiiti dagaalka intuusan dhicin ka hor waxay Xamiiti ka taageeri jireen inuu ciidamo u tababaro inuu hubsiyo dagaalka ka hor ayay halkaasi ku sugnaayeen sidoo kale waxa dagaalka Suudaan ee hadda socda lagu arkay ciidanka lagu magacaabo ciidanka gaarka ee Wagner Group sidoo kale waxaan meesha ka marnayn labada dal ee ah Ethiopia iyo Eritrea Ethiopia waxay dalkeeda ku casuumtay ama ay ugu wacday Cornel Cabdilfataax al-Burhaan halka Eritrea ay u wacday ninka lagu magacaabo Cornel Xamiiti oo ah ninka ka soo horjeeda al-Burhaan yani waxay ku tusaysaa inay u kala safanayaan labada dhinac haddaba guud ahaan dagaalkaasi waxa uu saameyn ballaaran ku leeyahay dunida haddii ahaan leed ganacsi ahaan haddii ay lahaan leed mid siyaasadeed labadaasi Cornelna waa uu ka weyn yahay waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan wax badan ka fahanteen ama ugu yaraan concept yar aad ka hesheen wax hadda ka socdo
socdo dalka Suudaan. Intaas ayaan jecelaystay inaan idinla wadaago. Haddii aad muuqaalka ka heshay fadlan like saar si uu dad badan u gaaro. Haddii aadan nagu soo biirinna waxaan kaa rajaynayaa inaad nagu soo biirto haddii aad Facebook naga daawanaysid iyo haddii aad YouTube naga daawanaysidba. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Peace.